لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ هو 8 بش جون 2016 waxaan soo gaarnay deegaanka Bariire oo run ahaantii duruufo iyo xaalado adag soo maray ilaa hadan ka muuqata. Adarkiisaan dadii magaalada labada buund ugu qabo tan waa tii hore oo la burburiyay, tanna waa tii labaad ee la dhisay iyadana la raaciyay. Waxa cajiib ah magaaladiina waa kana uqaygii lagu nasan jiray waagii hore saxaafii saasoo noqday. Magaalada gudaheedana way ka daran tahay lahayd, gudaha u gali doonaa insha Allah. geedahan waxaa la dhihi jiray geedaha muqayga, waa geedo taariikhi ah oo quruun soo jiray. meeshaan geedahan dhan waxay ahaayeen geedo taagan oo maasha Allah caleemooda ay qoyan yihiin, ay dadku ay hargal ay u imaan jireen oo lagu nasto duuradii. xoolaha halkan ay ku soo aroori jireen. hubigana waa kana darbigan uu ka dambeeya awal ku qabo, darbigan buurtaan uu ka dambeeya. waxa cajiib ah geedihii weynaa ee muqayga inay halka ku burburaan. khasaarihii burburka magaalada halkaas oo ka bilaabanaya waa kan, waa guri kamid ah guryaha deegaanka oo aad arkaysaan inuu burbursan yahay ilaa ay xagga gudaha sidoo kale guryaha ay burbursan yihiin. magaalada sida xun ay ma arkaysaa deegaanka ay u saameeyeen ahaantii. haddana gudaha u geli doonaa insha Allah. waa ka webiga deegaanka run ahaantii dadkana ay xilligii hore biyaha ay ka arooran jireen. halkaanna waa bilicdii magaalada masaajidka weynaa ee jaamaca run ahaantii sanadkan burburkeeda ku dhacay, laakiin dadka deegaanka dayactirtay alxamdulilah. awgar halkaan imaw waxaan rabnaa inaan ma arkaysa hal mar burburkii buundada inaan isla aragno. buundadan aad arkaysaan waa wadada keliya ee magaalada laga soo baxo. mid ayaa jirtay hore u jirtay oo dowladii hore siyaad bar xilligeeda la dhisay. buundadii waa la burburiyay, mid kale ka dambaysaa jirta iyadana waa la burburiyay. webigii waa kan hadda dadkii dooman yar yar oo macbal ah ama macmal ah oo dadkii deegaanka ay samaysteen ay ku soo gudbayaan. waa ka webiga quruxdiisa waad arkaysaan. beerihii cambaha deegaanka Bariire waa deegaan barwaaqo ah, laakiin masiibo meel ay ka imaada aan la garanayn magaalada dawakacda. ilaahay ka dulqaado insha Allah. gudaha u galay magaalada ayaan gudaha u soo galnay. burburkii magaalada ahaantii inaan ka sheekeeyo uma baahna. halkan waxay ahaan jireen guryo dad ay degan yihiin. awgar zoom samee guryahaas ku qabo sarta burburtay. halkaana ku qabo waa guryo la deganaa waay. magaaladii waxay noqotay magaalo aan xaalkeeda laga sheekeyn karin. laakiin dhinaca kale masaajidkan laftiisa waa burbursanaa, laakiin dhalinyarada iyo dadkii deegaanka isku tegay oo maasha Allah qarash badan geliyay. hase ahaatee dadkii guryahan iska lahaa bannaankay jiraan, meel ay ku soo noqdaan lama haystaan. waxay u baahan yihiin compensation in guryahoodii loo dhiso wixii ka burburay in loo hagaajiyo. marka insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu dadkan faraj u soo saaro insha Allah. horaan u sii socon doonaa magaalada inteeda kalena waa arkaynaa. waa ka guryo ay dadka ay degnaayeen. xaaji Axmed Cumar Hadaaf adeerkay gurigiisa waay. marka uma baahna inaan sharaxaad kale ka sii bixin. waxaa cajiib ah kan suuqi miya suuqi waay. Allahu akbar. guryaha markay dhisnaayeen meelahani way kala fogaayeen. meel fog inay ma arkaysaa inay aad u kala fog yihiin camal ayay noo ahayd markii hore masaajidka jaamaca markii laga tagay. laakiin subxaan Allah waxba uma dhaxayn. guryahaas yaraa u dhaxay guryaha meesha ka baxay markii magaalada way soo muuqataa hadda. dadku waa dad ahlu quraan ah. masaajidkii baa furan, quraan baa ka daaran. xasbunallahu wa ni'mal wakiil. waa la iga sheekeyn jiray, laakiin maanta indhagaan ku arkaa intaan xaafado la degnaayay ahay. ummadii degnayd maanta guryahooda way ka barakaceen. meel ay ku soo laabtaan ma haystaan. suuqii magaalada waa kan, guryaha waa la degnay dad baa degnay. masaajidkii Sheekh Xuseen, masaajidkii jaamac waa la dayactay. masaajidan quruxda aad arkaysaan sidaan may ahayn, sidaan oo kale ahaayeen, laakiin waa la dhisay. dadkii deegaanka dhisay. marka reer Bariire ay u dacwoonayaan. dacwada xagga Ilaahay jirtaa, laakiin ciday gacantooda ku burburtay deegaankan mas'uuliyadda ka saaran xagga Ilaahay inay guryahan dib u dhisaan.
sugteen waxaan ku dhex jirnaa magaalada gudaheeda suuqii magaalada oo runaanti gebi ahaanba burburay baad arkaysaan guryahan dhinaca kale markaan ka gudna iyagana waa kuwaana dadkii guryahoodii gacan kuma jiraan waa Gaza 2 bay noqotay beriida markaan dhahayay warkaas inuu run ahaa maanta waad arkaysaan waxaan guryo dad ay deganaayeen waa zoomka ugu soo qaado kan guryo dadka ay deganaayeen waaye dhinacaana ku qabo waa kaa guryihii si toosa ayaa loo burburiyey dadkii guryahan lahaana maanta waxay isku dayayaan inay soo laabtaan laakiin maxay ku soo noqonayaan haddana waa qayb ka mid ah suuqii gurigan fiiriya dukaankan iska laa dukaankan ismaan sheekh dukaankii ismaamay waa kana isagana dukaanka ismaamay waa kan dukaankan wuxuu ka mid ahaa dukaanada ugu waaweyn ee magaalada ku jira subxaan allah qaybtaan waad arkaysaan ilaahay sidaan ha u soo dhaamo guri baan waa meesha kaasa maya baan inta hawaii mid goyn shakhsi maanta wali dhibaatada magaalada ayaan soo bandhigaynaa gurigaas sabtaad arkaysaan xaaji cali ayaa iska lahaa makiinadan waa makiinad saliid makiina cajiin waaye waa makiinadii ay dadka deegaanka ay cajiinka ay ku samaysan jireen mootada iyo ma arkaysaa cajiinkii lagu samaysan jiray waaye makiinada fiiri saasay u burburtay ma aqaana wax sharaxaad aan ka bixiyo ama erey Soomaali aan ku cabiro dhibaatada deegaanka beriida ka jirta aniga iima muuqato dadka ayaga ii sheegay waa ka makiinada cajiinka gurigan waad aragteen guryahan waad arkaysaan suuqa hadda waan ku soo qabanay isagana magaaladii dhan hadda way soo muuqataa geeska gees waa ka gurigaas masaajidada way taageen ayaguna ma taagnayn hadda ayaa dadka deegaanka inta isku tageen ay dhiseen laakiin guryahan lama dhisi karo awoodda looma hayo magaalada gurmud bay u baahan tahay Gaza 2 bay noqotay run ahaantii Gaza maanta ninkii taga iyo ninkii beriida tagay waa isku mid waaye ma arkaysa isla wixii bay arkayaan laakiin waxa ilaahay fadligiisa maalinta dhibaatada magaalada ka dhacaysa dadka deegaanka ma joogin way ka sii baxeen taasa ilaahay fadligiisa insha Allah mar waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay u soo saaro deegaankan dad mas'uuliyiin ah isu xilqaamaya dadka masaakiinta guryahooda u dhisa waxaa intaa ka sii murugo badan guriga dhagaxaantiisa hadda aad arkaysaan waa gurigii ay deganaan jirtay ayeeyaday aabbahay dhashay uu deganaan jiray awowahii aabbahay dhalay waad arkaysaan burburka gurigan maxaa ka haray idinkaa ii sheegi doono of course dhismihii ay ka tageen ma aha oo waa la dhisay oo saraa laga dhigay markii dambe kasta oodiina weli ay ka muuqato laakiin bartaan waa bartii ay deganaayeen awowahii iyo ayeeyaday anoo yarna aan qaxwada aan ka soo doonan jiray waxaad ka haray maad arkaysaan waa maya waa ka guriyihii kala deriska kulli saasay u baaba'san yihiin kuwii kale waa kuwaan ah marka magaaladan ayaa dadkii u dhashay waxay rabaan inay soo laabtaan waxay u soo noqonayaan waxaa la yidhi maxay ka nuugtaa maxayse ku nuugtaa dadka haba soo laabtaan ama xumee maxay ku soo noqonayaan maxayse u soo noqonayaan meelay degaama ma haystaan waxaana maaha wax Soomaali loo qayl dhaansada dhisi karta maaha arrintan waa mas'uuliyad dawladeed waaye waxaan ma arkaysaan aaminsanahay dadkii ummaddan u dhaartay hadday imaadaan inay waxaan wax ka qaban karaan qofkii gacantiisa ku burburtay iyo qofkii u dhaartay ee mas'uuliyadda qaadayba waa laga rabaa guryahan ummaddan in guryahoodii loo dhiso marka fiidiyada waxaan u duubay mar walba meeshaan istaagno ayaan wax ka duubaynaa si xaaladda aan ummadda xaaladda deegaanka aan usoo bandhigno insha allah kanna waa mid ka mid ah guryaha deegaanka oo gebi ahaanba dhulka la dhigay guryaha mikirmayo waa iska lahaa isagana gebi ahaanba isagana waa burburay qofkii gurigan iska lahaa absolutely lagama yaabo inuu kusoo noqon karo xitaa maacuuntii guryaha tiilay waa kuwanaaday ilaahay baan kugu dhaashay waa maacuuntii waay macnaha waxaan ilaabay inaan ku daro guryahan markii la burburiyey kadib dadkii ay ka baxeen intii hartay saraq iyo gaas ayaa lagu daaray waa la gubay ilaa ay hadda dadka deegaanka waxay isweydiinayaan dadkii deegaankana way ka baxeen intii hartay maxaa dab loogu daaray
maxaa loo gubay waa su'aal taagan oo u baahan in laga jawaabo cidda ka jawaabi lahaydna lama yaqaano waayo qof aan su'aashii weydiina ma hayno marka xaaladan waa xaalad aad u adag hadda aan dhaxda ka soo galnay waa guriga eedaday aabahay da'da ka yaran ilaahay u naxariisto qabriga waasici mar baan deganaan jiray gurigii waad arkaysaa isaga laftiisa lamiyadiisa day xabadiyaa qaaday halkaana waa kan dabcan gantaal baa ku soo dhacay marka waxaa xusid mudan gurigan wuxuu ka mid yahay guryaha ugu fiican ee badbaaday macnaa haddaan xitaa sawir kale magaalada ka soo qaadin kana idin kaga filnaado guryaha ugu fiican ee badbaaday ayuu ku jiraa sida la ii sheegay sidaas ayuu kaga mid yahay guryaha ugu fiicnaa ee badbaaday subxaan allah marka walaalayaal dhibaatadan jirta idinkaa cabiri doona halkaan fiiriya beriire xaaladan ku jira aad arkaysaan ilaa iyo hadda cid mas-uuliyaddii qaaday oo ummaddan u imaaday oo ma arkaysaa wax muuqda oo la qaban kara sheegtayna ma jiro gurigan eedadii labaada iska lahayd ayadan eedi binti isagana waa kaabaa burbursanya marka maxaan soo duubnaa maxaanse ka soo tagnaa magaalada haddaanan sawir kale ka qaadin intaa ha idinkaga filnaato magaalada waa wada intaan marka yaa mas-uuliyaddan maalinta qiyaamo qaadaya ciddii qaadaysa waa istaqaanaa anu inaan magacyo qaada hadda uma baahni laakiin magaaladan ha loo soo taliyo sidoo kale taariikh kale barta aan taaganahay waa goobtii ama bartii aan ku dhashay waa gurigan ee hadda gebi ahaanba burburay aadan xitaa derbi kaga muuqan ama ka harin waa halkii aan ku dhashay gurigii aniga aan ku dhashay waa cismaan ee deegaanka beriire gebi ahaanba gurigan waa burburay waxaa ka haray keliya dhulkii ciiddii baa ka hartay halkaana marka gurigan hadda uu ku qabo gurigan waa gurigii ma arkaysaa kan hadda burburay walaalkeenaa degnaan jiray xilligii dambe laakiin kanaan dhisanay anaga markii dambe oo 3 guri uu noo ahaa ani walaalkay hooyadii aan wada degnaan jirnay gurigan marka gebi ahaanba waa burburay isagana 3 guri sara oo markaas gacanta laga qaaday aanina aad loogu intifaacin buu ahaa gurigii dariska waa kan isagana gebi ahaanba meesha waa ka baxay allahu almustacaan makiinadii garaashkii wixii وأنا جمعان بوي بربورين المرة وحن قلنا ما تقولي مقولي إنسان قلنا وحن أركيسا ماشان إن ما أركيسا حالة عضك مجالنا إن يكدع عضي وحن تصالح إذن قوليها وقوليها دربيها لأمين وأركيسا جمعان بوافقنا دربيها وأقوانا قولي هذا دربيها حتى أريس حالة نوش شيء in ooda gudaha in dab lagu qabtay dadkii markay ka baxeen kadib waa ka waxaad haray bal guriga isaga dhan in dhulka la dhigo noqona in haddana dib loo dhigo 3 guri oo isku furanay ahaayeen wax haray oo maanta hadda gurigan ka haray in guriga sabta ahaa ma jiro waa ka tarbiyadii oo kuwana qolonkii oo kuwana runtii waa masiibo aan أنا مبدأ كريم لكن إلهي عز وجل وحاول يدينا إنه حل إنه إلهي إنه كان إلهي حل كيرو إلهي أمضى مساكين تقوليه ده عندي أمجنا هيقول لي سنهينا إلهي كان قف على قف المسؤولية ده حنباري ما ننسى قيام إلهي هرتي أج إن لقى حساوي ومضى هأصوت لي وكان قريه كلا درس كثير وحما ما هارين بمجالدي دن وودماتي جبي أهم بقولي هذا يركع كتاجن دور قولي أو فرق ترس مركب مجالنا سنة هالله دامو حنا الله صوت لي وقفت اللوات قولي جينا دقيقة كبيرة وقفت ولكن دقيقة قفت أنا وقفت وين دقيقة والهالمر كنا أنا جدها وقفت أني هو دجال معناه دجال بو كبر بركري لما ديه كرجولي يعني لكن نوع من ما أعرف عرين أنا فاهم الكلام المعناتي أيا جولي قال لي أنا بقول لك أنا أريد بقى قدام هذا ما بشرح كربا أنا ما شاء الله أركيسا
ولا الدليل ماشان كنتالكي وحي كماشي ما أركيسا قولي قيبتي كنتالكي كبد بادي وحالة سمي انت هالكا الدليلي بطرق من قد داري دبا لقوة سي مركاسا دبكي وحو عني أودي أما جيديه قوليغا ما أركيسا كادسنا هالكان جيدا كتاقنا سان أركيسان جيديه وحا عني دبكي قوليغا لقوة سي وانت كهرتي إلهي كوما درنادا انت كهرتي كنتالدا ayaa ma arkaysa sidaan loo galay dabba meeshaas lagu daaray ilaa ay halkaan oo digumatay waad arkaysaan marka guriga derbiga hadda taagan aad arkaysaan ma taagna because oo baa jirtay ama geedaa jiraysa u taqaanin oo derbiyadan hayay geedihii dhan taraf baa la qabansiiyey lamir waad arkaysaa derbiyada waad arkaysaa waxba ma harin saddex guri sara oo markaas gacanta laga qaaday ahaayeen gabi ahaan sidaan ayaa loo galay sidoo kale waxaa xusid mudan weliba gurigan mar kasii fogeyn ama aad uga sii fogeyn xilligii dagaalaan ay dhaceen guryaha kusoo dhacay oo walaalkay ilmihiisa ku wada dhaawacmeen dhacdo weyn ay ahayd gurigoodii waa iskaga qanceen waa iska joogeen haddana dagaalkii labaad aa bilaabtay magaalada dhan ay ku burburtay waa kaa hadda gurigan sida indhiin aad ku arkaysaa waxba kama harin gebi ahaanba waa burburay intii hartayna saan isla aragnay dab ayaa la qabansiiyey derbigaan ku qabo waa kaa derbiga waad arkaysaa gantaal ku dhacay keliya inuusan ahayn in dab la qabansiiyo waad arkaysaa oodaas ama geedahaas u dhexeeya ma arkaysaa sarta waa gubtay maxaa gubay waa taraqii dabkii meesha lagu gubtay waayo marka cadaawadda intaa la eg deegaanka loo qabay aniga ma garan karo waxa dambi ay galeen laakiin xisaab alla xaqiisa jirtaaye cidii usoo dumarka ummadda dhibaataysan ha usoo dumarka qaybtaan aad arkaysaan waa xaafidihii reebirin oo isla yaqaaneen reer awbooley waaye guryahan guryo saray ahaayeen markaan yareen waa imaan jirnay waxaa cajiiba inaan waxba ka harinba gebi ahaanba weliba waxaa xusid mudan akhyaare guryaha la beegsaday saa loo burburiyey waa guryihii magaalada bilicdeeda ahaayeen waxaad moodaa ma arkaysaa arrinkan inuu ahaa arrin waxaan ku tilmaamo ma garanayo guryaha kale alxamdulilah oo caadiga ah waa badbaadeen laakiin wixii guri sar ahaa si toos ah ayaa loo beegsaday marka dadkii guryahan degnaayeen maanta guri la-aan ay ka yihiin banaankay ma arkaysaa ay ka jiifaan marka insha allah waa taariikh mudan in la kaydiyo duruuftan ama xaaladan deegaanka berida maanta uu ku jiro waa taariikh mudan in melafka taariikhda Soomaaliya in la geliyo boqolka sano hadda soo socotana in laga sheekeeyo magaalada dhibaataa ku dhacday ilaahay tan tu kale ka dambaysa ilaahay ma geliyo tii ugu dambaysa uga dhigo dadkana ilaahay cawd hasiyo gurigan waa gurigeeni afaraad aan deegaanka berida aan ku lahayn isaguna sidoo kale gabi ahaanba burburay وكما حري magaalada duqeymihi ayaa magaalada ma arkaysan aan baanay guriga sabara isaa u burburisay iyo guriyo badan oo deegaanka soo aragteen waxba kama harin hada guriga gabi ahaan waa u dhamaatay sabara wuxuu u baahan in dib loo dayactiro halka markaas oo fiirsan magaalada dhinaca soo baxay insha Allah markaan ku qaadaba waxaad arkaysaa guri isaguna burbursan guriga wada arkaysaa gurigan derbigiisa wada arkaysaa mardhow waa laga bedelay jiingad cusub waa la saaray marka xaalku waa kaa magaalada waxaa ma arkaysaa burburiin dab iyo duqeyn toosa iyo guryo qaar oo dab la qabatay marka waxay ummadaan u baahan yihiin in loo soo gurmado waxay u baahan yihiin in xilli mas'uuliyad iska saaro waxay u baahan yihiin guryahooda in loo dayactiro loo dhiso dayactir ma aha in loo dhiso waxna dayactir meesha ma yaalo ka arkaysaan marka insha Allah Ilaahay Azza wa Jalla markasta waxaan ka rajaynaynaa xaalad ka wanaagsan iyo xilqaan mas'uuliyad in la saaro oo ummadaan guryahooda lagu soo celiyo
waxaa hadda soo gaaray maxamuud ay soo gaaray oo guriga isagana noo sharxay insha Allah maxamuud hay kan waxa iska leeyahay Shu'ayb Ilyas Abuubakar Mukhtaar Shu'ayb Ilyas Abuubakar Mukhtaar gurigiisa gabi ahaanba waa burbursiya ilaa iyo xagga Abuubakar Zoom samay inta ishaada qabad fiiri guriyahaasna dhulka lagu daray Nafiso Ahmed iska leeyahay Nafiso Ahmed gurigeeda waa kaasna isagana gabi ahaan waa burburay gurigaana kan waxa iska heer Macalin Yuusuf iska leeyahay Macalin Yuusuf iska leeyahay isagana gabi ahaan waa burburay xaggaasna kaas ay leeyahay iska leeyahay kaas Abdullah Macalin Yuusuf iska leeyahay كان وهذا جيلان متبهدي ولا جيلان متبهدي علينا إلهي حل إلهي حكينا ومضى عنها لوسو جرمدو ومضى عن قريودا لوسو حلي هل كان فيه سبحان الله كان عبد الله مع يوسف أسكر هل كان داي واكا مجانا هو اللي دقنا ما لها قريه أحايا ربا دقنا ما أنت قف هاري قري ما هاري salaadii alla aqrimay markaan video waa joojinayna masaajidkan tagayna insha Allah waxaan joognaa gurigoodii gurigiisa guriga hooyadii mahaantii gabi ahaan baan dhulka ku dalay makiinadii meesha ku yeeshay guriga hooyadii kaas way kana iskale ana la haykan kaas hooyadii iskale hay alaabtaas markaasna waa guud sax waxba kama harin wax ma gaarin gurigan waa gala laba guri meeshaan laba guri ku laba guri ku yaal labadii gurina hadda maanta waxba kama harin wax ma ku yaal laamiyeriga harin laamiyeri gubtay waa gala taa ujeed way xaaladda waad arkaysaan wax badan waa soo aragnay video anaga iska soo duubnay aan aragnay oo anaga la soo duubnay oo guri aan dadkiisaba joogin laakiin hadda walaalkay Maxamuud aaba joogaba isagana gurigiisa saa u burbursan yahay marka ummadan sidaan ha loo dhaamo guriyooda ha loo dayactiro taariikh madow bay noqotay magaaladan loo diiwaan geliyay laakiin wax kasta insha Allah lama ilaawi doono laakiin maanta ninkii magaalada mugdigan ka saari lahaa ayaa la sugayaa insha Allah Rahmaan Rahiim haddana waxaan joognaa madrasada ama dugsiga Quraanka Kariimka Abubakar Sidiiq oo mar dhaxdaas lacag $2,200 nin saaxiibkeeya Sheekh Maxamed Idriis nin kale saaxiibkiisa Mareykanka jooga igu soo dirsaday aan u gelinay alxamdulillah waxaan ku soo galnay laamiyerigaas shamiintadii iyo mutuleelkii shamiintada sida la ii sheegay 14 loor ayaa ka hartay oo masaajidka jaamaca ciidana la geeyay alxamdulillah lacagtii masaajidka way dayactirtay anoo maqan baan soo diray haddana waan arkayaa waxay qabatay lacagtii gudaha u gelinay madrasada macallimiintii ayaa joogta ma sha Allah waa kan qololkii mutuleelkan ilaahay ka ajirsiyo walaalkay sagaa igu soo dirsaday lacagta laamiyerigaana waa la saaray qololka dugsiga waa kuwaana qolkii labaad ما شاء الله سيب وحدنا دكسي وضع يعتري ما عرفت كيسا برحد دكسي واكن هل كان وقول كله ما شاء الله تلاقي يلام يري عصب حنقوم علينا خلف الجمعة كنا هاي ما شاء الله وحكى خصوصي التاريخ هل كان واحد كجرة halkan waxaa yaal ushii ciyaalka lagu garaacay markii quraanka gafaan kanna waa looxi dugsiga quraanka lagu garanayo waa kan qolkaana waa keedkii istoorkii waa usha iyo looxyada marmacalinka waxaa loo sheegay ilaa hadda 30 arday ayaa hadda joogto waa magaalada si toos loogu soo noqon doonaa laakiin insha Allah hadda 30 arday dugsigan 400 arday ku xirnay laakiin maadaama magaalada laga wada guuray hadda 30 kaliya joogto insha Allah dadka markay soo laabtaan ودكسيد ugu weyn magaalada ku jira haduusan ahayn dugsigan adarkiisa uu ka mid yahay dugsiyada farqutiriska magaalada ku yaalay suuqayntii dagaaladii ka dhacay magaalada arkaysa burbursan maanta deegaanka way dadaaleen masaajidii waa la wada dayactiray dugsigii ma arkaysa Abubakar Sidiiq waa la dayactiray laakiin dugsigan iyo dugsiyo kale wali lama taaban sidaan ugu burbursan yihiin haddii loo heli karo dad muxsiniin ah oo dugsiyadan wax ka dhisa runaantii waa loo baahnaan lahaa horay gudaha uma geli karno waa kuwaana guriyihii magaalada qaar ka mid ah ayagana burburay halkaana ku qabo waa ka guriyahaasi zoom ku soo qabo ayagana sidoo kale way burbureen gurigaas sida la ii sheegay sida loo dhisay waaye lama degin xitaa isaguna sidoo kale guriyihii burburay buu ku jiray ma arkaysaa ilaahay ummadda ha u gargaaro dugsiyadaana ilaahay dad muxsiniin ah u soo saaro oo ma arkaysaa ummadda u dhista
حالدان إلهي بان كسوجينا ومدرسة عمر بن الخطاب وكم هي مدارسة قرآن الكريم كل لغة برنا يديجانك معنا سهرة وصل شجني أبو بكر الصديق وان ضيعتني ترى الله سيو صاحب كيا معك الله بكون يشم قرض أمريكا كسر دري أيام كل ضيعتني لكن مدرسة أولي لما صارن ما أعرف باهيد هذا ويكبر أنت هاي باهيد مدرسة أبو بكر الصديق مدرسة لواد هذا عن دوبينه أيضا نروح هانتي وباهن إن حل إسكسارة يعني هذا واحد بربري جوري قف شخصي وقار وليه هاي إيوه جوري اللي وده اللي هاي واه مساجد الإلهي يدوسيدي مساجد دي الحمد لله واد ضيعتني لكن دوسيدا مid baan dayactirnay qaar baa dhiman kan baana ka mid ah isagana u baahan in loo helo dad muxsiniin oo ilaahay ugu dhawaanaya ama waalidkooda u niyoonaya ma arkaysaa masaajid dugsiyadan dayactira insha Allah marka laakiin guriyaha saad arkaysaan ayaguna waa burbursan yihiin oo duqeymaha waxay ka tageen ma jirin iyo dagaalada gurigan hadda ninka loo dhisay la rabay inuu ku aqal galo ilaahay u naxariisto waa dhintay inkastoo dagaalka ugu dambeeyay uusan ku dhiman laakiin qarax magaalada ka dhacay dagaalka ka hor uu ku dhintay waa loo dhisay inuu ku aroosaan loogu talagalay laakiin ilaahay uma calfin gadaashiisana gurigiisana waa burburay ilaahay u naxariisto Cabdullaahi Mayo baa iska lahaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan helno dad muxsiniin ah nagala qayb qaata dhismaha madaaristan iyo ma arkaysaa iyo wixii kale oo la isla qaban karo insha Allah jazaakumullahu khayr waxaan joognaa halkii aan magaalada kaga bixi lahayn buundada korkeeda ayaan saaran lahay run ahaantii waxyaabo badan ayaan bulshada la wadaagnay maanta dhibaatada magaalada ka jirta tusaale u ah burburkii oo muuqda wixii laga sheekayn jiray hadda waxaan dul saarannahay buundadii koowaad ee deegaanka waxayna tusaale u tahay ama cadeen u tahay dhibaatada magaalada maanta haysata buundadan waxaa la dhisay xilligii dowladdii Siyaad Bare 2017 ayaa loo soo xilgaabiyay sidoo kale dadka deegaanka qayladaan bay sameeyeen mid kala labaad ayaa la dhisay iyaduna sidoo kale marka labada buundaba maanta waa la burburiyo waad arkaysaan guriyihii way burbureen magaaladii hadda doon oo dadka ay sameysteen ay ku gudbaan sida la sheegay hadda halkan waa la mari karaa laakiin gaari raran meeshaan ma mari karo labadaas doon xaggaas yaala zoomka waa u soo dhaway kaamirada labadaas doon hadda lagu gudbaa magaalada laakiin baahida magaalada ma kaafin karto baabuurta raran magaalada ma soo geli karto doomankaasna wax kasta lagu gudbin karo guriyihii burburayna waa wada aragnay marka magaaladan waxay u baahan tahay gurmad u baahan tahay yaa u qaylo dhaansanayna ilaahay baa garanaya qof kasta oo mas'uuliyad xag ilaahay ka saaran tahay wadankan waa laga rabaa magaalada inuu soo gurmado qof kasta oo Soomaali ah muslima muxsina awooda wax inuu magaaladan ka tarana waa loo baahan dugsiyadii baa burbursan waa soo aragnay jidadkii burbursan wax badan ayaa magaaladan looga baahan yahay sidoo kale mas'uuliyiinta ayagana mas'uuliyad baa ka saaran qofkii ay gacantiisa ku burburtay inuu booqdayo isaguna waa mas'uuliyad kale oo saaran waay marka ummadan way dhiban yihiin haloo soo gurmado wabigii waa kan magaalada magaalo gurmad u baahan ma ahayn way isku filnaayeen waligood waxay gacantooda ay ku soo saartaan ay ku tabcadaan ay cuni jireen wax uma baahneen laakiin aafadan iyo disasterkan dhacay darteed ayaa magaalada looga wada qaxay maanta dad badan ma degana laakiin waa la imaanaya haddii magaalada la dayactiro marka insha Allah guud ahaan halkaan aan ku soo gabagabeynaa documentary aan ka diyaarinay deegaankan خير يعني إذا رجعنا إن شاء الله قفل بسوق وحنقعد سنة نسيق البيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.